بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalyaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni nutritionka diet-ka ama cuntada iyo nafaqada. waxaan jeclahay in aan uga hadlo videogan sidee si caafimaad leh aan ugu cunaa bisha barakeysan ee nagu soo fool leh. Rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa inuu na gaarsiiyo bisha tan. waxaan ogsoonahay wadamada aan joogno in la soomo ama soomku bisha Ramadaan ay tahay ilaa 16 saac 17 saac 18 saac ay tahay. marka qofka maalintii oo dhan waa uu soomanaa. markuu uu soomanaa oo uu soonkiisii uu afurayo waxaa loo baahan yahay in uu ku cunteeyo cunto caafimaad qabta. dadkeena badanaa sida caadada ay noo tahay waxa weeye in lagu cunteeyo sambuus ama bur ama koob shaaxa ama biyo qasan ama waxaas la mid ah. marka maanta oo dhan haddii aad soomaneed jirkaaga waxa uu leeyahay waxa ku dhacay dehydration ama biyo la'aan ayaa ku dhacday. marka waxaa loo baahan yahay tusaale ahaan oo kale markii aad afuraysid in aad ku horbilowdid biyo intaad ku bilaawi lahayd timirta markaad cuntid oo kale 3 xabo timir ah ama xabo timir ama 3 xabo timir markaad cuntid in aad biyo cad ku xijisid ayaa loo baahan yahay. sababta biyaha cad aad ugu xijinaysid waxa waaye jirkaaga waxa ka dhamaaday biyihii ama biyo ayuu u baahan yahay maadaama 18 saac ama 17 saac aad soo soomneyd. marka sidaa daraadeed waxyaalaha aad cuni kartid waxaa ka mid ah waxyaalo jirka u soo celinaya biyihii ka baxay. waxaa tusaale ahaan oo kale ka mid ah qaraha oo kale ama watermelonka fruitka loo yaqaan aad ayuu u fiican yahay. waxaa kaloo ka mid ah fruutyada kale sida oranjiga oo kale iyo waxay soo celiyaan mataqaanaa biyaha. waxaa sidoo kale muhiim ah qofka inuu ogaado marka uu cuno cuntooyinkaas mataqaanaa biyaha u soo celinaya dehydration ku soo celinaya in sidoo kale uu qofkii uu ku afuro cuntooyin nafaqo leh. cuntooyinka nafaqada leh waxaa ka mid ah sida qudaar oo kale in uu ku afuro ayaa muhiim ah. qudaarta ama mataqaanaa waxaa rabtid ku cun ama waxa weeye cunto energy ku siinayso oo nafaqadii aad u baahneed ku siinaysa oo cibaadadii kuu fududeynaysa ayaa loo baahan yahay in aad ku afurtid. sidoo kale waxyaalaha qofka uu sameyn karo waxaa ka mid ah maadaama waqtigeena maqribkii cishii uu isku dhow yahay salaadii mataqaanaa taraawiixdana ay soo dhowdahay in uusan qofka isbuuxin ayaa loogu talagalay. dadka badanaa waxaa dhaca si aad aragteen qofka waxa uu cunayaa cuntooyin fara badan oo saliid iyo sonkor leh markuu cuno salaadii ayuu istaagayaa. dadka qaarkood taraawiixda xataa ma tukadaan sababtoo ah waxa waaye cuntadii saliid iyo sonkorta lahayd ayaa jirkiisa ka buuxsantay. marar qaarkood waxaad arkaysaa masaajidda markaad tagtid qof aan tukan karin dad badan oo aan tukan karin oo fadhiya salaada iyadoo lagu jiro. marka waxyaalaha saas looga fursan karo waxaa ka mid ah qofka marka ugu horeyso in biyuhu u baahnaa dehydration jirkiis ku dhacay in uu ama biyo cabo ama waxa waaye fruit cuno. sidoo kale waxaa ka mid ah in uu qudaar cunto uu ka dhigto. waxaan sheegi doonaa insha Allah cuntooyin qudaarta ugu fiican ee markaas waxa waaye soo celinaya jirka nafaqada uu u baahnaa. sidoo kale waxaa ka mid ah qofka waxa waaye healthy eating habits inuu la yimaado aadan caloosha iska buuxinin wax yar aad cuntid maadaama waqtigu isku dhow yahay. sidoo kale habeenkii markii aad suxuuranaysid waxaa loo baahan yahay inaad cuntid cuntooyinka qamadiga ah. cuntooyinka qamadiga ah waxaa la sheegay inay awood u leeyihiin qofka in uu 8 saac 10 saac 11 saac ay waxa waaye nafaqadii loogu talagalay qofkii ay siiyaan qofkii aysan ku ridin wax gaajo la yiraahdo. sababtoo cunto adag weeye cunto qofku waxa waaye uu ku joogi karo waaye carbohydrate ay leeyihiin waa complex oo jirka wax badan ayuu qaadanayaa. marka cuntooyinka noocaas oo kale ah ayaa loo baahan yahay insha Allah taala. marka inta aan iska arki doona cajalada xigta ama casharkana casharka xiga waxaan idin ka rabaa insha Allah taala inaad ka faa'iideysataan dad kale aad la wadaagtaan insha Allah taala. waxaan isku arkaynaa casharka xiga waxaan idin ka tagayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.